qofka dhalinyarada waa kan dadka hormarinayo waa mid ilaahay subxaanahu wa ta'ala ku xiran kitaabka allana akhriya kitaabka alle akhriya fi kulli salaad kasto waxaan dhahnaa ihdina siraat almustaqiim allow waxa nagu toosisaa wadada toosan صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إلهي سبحان الله نغتوسي الله وضع توصل نسي قفك dhalinyarada markuu soo kaco oo u baahan yahay Allah subhanahu wa ta'ala waqtiga aad ugu baahan tahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala waqtiga dhalinyarada waxaad u baahan tahay Ilaahay inuu tawfiiqda ku waafajiyo waxa u baahan tahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala wadada toosan inuu kugu hago lidalika quraanka hamuganaan oo akhri oo tafsiirkiisa baro oo ku dadaal inaad akhriso nabi sallallahu alayhi wa sallam wuxuu leeyahay la aqulu alif lam mim harf bal alif harf wa lam harf wa mim harf alif ay harf lim lam kan wa harf mim kan wa harf intaana wa toban baa lagu dhufanaya inta wadan oo hooseysa ilaahay waa ku barakeynaya umrigaada quraanka da ku dadaasho ilaahay ajar badan ayuu ku siin sida xadiiska ku socon waxa lagu soo aroortay alla subhanahu wa ta'ala qofka ahlul qur'aan uu barakeeyay ahlul qur'aan ahlullah wa khaasatuhu ahlul qur'aanka wa ahlullah wa ahlullah Allah subhanahu wa ta'ala ahlkiisa way iyo khaasadiisa way kuwa quraanka ku dadaala quraanku walaalayaal waxaa loo soo dejiyey inaan ku hanuuno hudan linnaas wabayinaati min alhuda waa huda waa hanuun weeye iyo caddeyn alle subxaana wa tacaala uu caddeynayo bal qur'aanku wuxuu kaaga waramayaa alle subxaana wa tacaala isagaa iska waramay fi lqur'aan الحمد لله رب العالمين إلهي بمهضله إلهي رب العالمين أنك ربي الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا إلهي بمهضله إلهي سودج كتابك الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور إلهي أبو ري سماوات كي يرلك مجدي يدا افتينك الله أبو ري حوي أيام مهد إسكاله الحمد لله فاطر السماوات والأرض الحمد لله إلهي بمهضله إلهي عريي سماوات كي يرلك إلهي بما إلهي يا وحو إسكاه الله تعريفنا في القرآن أنت سنتذكر لك هذلين إلهي صفات كيسة هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الله سبحانه وتعالى تلماميسة أي كل شيء يا قرآنك السجع عبدينا يا الله سبحانه وتعالى في القرآن صفات الله كبرنيسا قرآنك waxaad ka baranaysaa qisaastii la soo dhaafay oo anbiyadii horay iyo ummadihii horay ilaahay subhanahu wa ta'ala suu u galay markay ku caasiyeen iyo wixii ay sameeyeen في القرآن قرآنك waxaad baranaysaa waxa soo socdo يوم القيامة iyo waxaad ahaan doonto laa uqsimu biyawmi alqiyaamah walaa uqsimu binnafsi allawamah ayaxsabu alinsanu an lan najmaca cidaamah bala qadirina cala an nusawiya bananah bal yuridu alinsanu liyafjura amaamah yani yowma alqiyaama waxa ka dhacayo iyo ahwaashii qiyaama iyo qofka markuu ilaahay siraadka wa in minkum ila waariduha ayuu alle subxaanahu wa tacaala leeyahay dadko dhan waa mari doonaan siraadka ahwaasha qiyaama jannadii wasiqa aladiina kafaruu ila jahannama zumara wasiqa aladiina ittaqow rabbahum ila jahannama ila jannati zumara jannada ayaa loo kaxaynaya jahannama loo kaxaynaya kuwa gaalada ardaasha ah yani mustaqbalkaada xaqiiqiga ah waa aakhiro aakhiradiina qur-aankaa kaaga waramayo aakhirada qur-aankaa kaaga waramayo saynis haddaa rabto haddaad rabto waxyaabaha adduunka hadda ka dhacayo quraanka dib ugu laabo ilaahay subhanahu wa ta'ala wax kasto kadalika yubayyin Allahu ayatihi lin-nas la'allahum yatafakkarun ayaadka Allah subhanahu wa ta'ala saas ayuu u kala dhigaya si aan u fikirno xaajadan u baahannahay wax kastaan adduunka uga baahannahay siiba dhalinyarada quraanka ayuu ku jira dib ugu noqo quraanka akhri quraanka baro تفسير كيس براه كددال إلهي سبحانه وتعالى وحكوفه يا الباب خير كأيو كفرايا نعم ما كان في رسول صحابة
ibnu mascuud nin dhanyaruu ahaa nabiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh wuxuu ku yidhi kaale igu dul akhri qur-aanka suurat الnisaa ayuu akhriyey fakayfa idaa ji'naa min kulli ummatin bishahiid waji'naa bika calaa haaulaa'i shahiida markuu maraya aayaadkaas ayaa madaxiiga kor u soo qaada yidhi cabdullahi bni mascuud markaasaan waxaa arkay buu yidhi nabiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh idin ka da'ayso nabigaa ku khushuucay qur-aanka dib baan ugu noqday aayadda waxaan idhi aayadda nabiga muxuu ugu ooyey waxaan akhriyay aayadihii ka horeeyey ayaab baad arkaysaa ilaahay subxana wa tacaala aayadaha waxyar ka hore waxa weeye wamaada calayhim low aamanuu biاllahi walyowmi alaakhir وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما إلهي وحول ليه وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم محا كركوضة أحد هدي الله سبحانه وتعالى رميان يمال انت آخر أي رميان محا كركوضة أحد إلهي سون الله الله يبقى oo suudadka uu la hadlay fi quraan wuxuu leeyahay korkiina maxaa ahaada yaani wax dhiba ma yahay in lagu sugan in Allah subhanahu wa ta'ala rumaysan iyo maalinta aakhiro oo anfaqu mimma razaqahum Allah ilaahi wuxuu idin siiyay waxa way bixisaan ma inta ayaa in lagu adag inna Allah la yadhlimu mithqala dharra ilaahi ma dhulmiyo mithqala dharra wal ogna mu'miniinta og dadka og ilaahi dhalim ma aha ma dhulminayo العادي الله سبحانه وتعالى وعادي أسقابنا أبوري محون أظل منها قفنا كما أحيانا قفنا ما جعل سنة الله سبحانه وتعالى عدالة إيه حق أيها الله سبحانه وتعالى لأسو تجي حقس ظلمين ويري إن الله لا يظلم مثقال ذرة وحقس ليه نبيك إلي انت وحقك كاني آياتك وحقوق الشيوعي إلهي هنا أبورتا وحولي ورأني قدتك مظلمية مثقال ذرة إن يربها آتي وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما هذه حسنتها هنا ونالتها إلهي سبحانه وتعالى والله بلابي ووحوي بقراجر بولا بلابي إلهي وقول بلابا يا لن يرضوا أهنو قصوك عنه ارتدى وقت بضن بانو كبحنا وحأنا أنفعين وقت بضن بانو كبحنا برهب بشدة يميلها كذا aanu ku bixino waqtiga ugu haboon iyo waqtiga fiican quraanka Allah subhanahu wa ta'ala inaan barno akhriskiisa aan badino tafsiirkiisa aan barno aan ku amal falno ibn Umar subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay waqtigii nabiga fi ahdi nabiy sallallahu alayhi wasallam 10 aayadood maanan dhaafi jirin illa aan ka xifdino 10 aayad oo hadana aan ku amal falno aanu ku amal falno quraanka aanu xifdino tafsiirkiisana aan barano aad bad u mahadsantihiin